opmærksomhed. xoolahay furi maayo xaruntay mar labaad xamarii noqon mayso xiskaygan wada shawriyo xusuustaa iga diidani xarfaa diinta islaamkiyo xoolo iibsi ha joogtee xukunkeen kala guriye deris aan isximaarin iyo xigta guud aan ahaano waxaan raaciyey waata soomaalinimada laygu xanto way ugu jirtaa soomaalinimadu kama murmi maayo waxaan raaciyey xaajadaasu dhammaatay intay xeer u samaysay bulshadaa xukuntadoo xaajadaasu dhammaatay xigaar bay taladiisu xilli aan hadda joogin xisaabaa ku dartaa xigtana waa xidid shiifay xayaab saartay dabayshu oo xagga hoose ka nool daruur xeebta ku hortiyo guga oo xabil goosta iyo xaysku waa bixiyaado way iska xaalada duuna xal walba waa la arkaaye haddii aa xarmataan koonfure oo hubka xiimo dhigtaan oo xamar ay nabadowdo abidna waa xaqirtaane xaqu baydhabo gaadho waa xumaa gurigooda ee gobolka xeebta waqooyi mudugna ah xukuntaan oo xaashidooda la eego xaddii muusku u beermo xoolihiinnu bataan idinkaana ximaarshe idin xaasidi mayno ma naqaan xaqiraadda waa salaamantihiin dhammaan allah naxariistee abwaan gaariye ayaa waqti ka mid wuxuu yidhi markaad aragtid oo nin weyn oo wax badan u soo joogay wuxuu yidhi waa library marka dabcan runtii qof aad u qiimo badan oo taariikh fara badan iyo welibana xusuusta ilaa xaddiga ku salaysan oo aan aad iyo aad ugu hambalyanayo oon leeyahay ilaahay ku sii siyaada garashadaada ayaa inala jooga marka dabcan waa inaan ka faa'iidaysano xigmadiisa iyo waayo aragnimadiisaba waxaan ku soo dhaweynaya xamdi iyaduna si halkaasi nooga sinta munaasabada haddana wuxuu ka hadlayay snakkede om dengang der var britisk Somaliland, det vil sige den tid, hvor der var kolonisering i Somaliland. Efter det så snakkede han også om, hvor lang tid det egentlig var i landet. Det var i alt 76 år. Så snakkede han også om lidt om det første i Somaliland, Partier.